وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما بعد، أحبائي في الله، ودراسينتي كتاب كيرني لما بحي المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده للدكتور عبد السلام ابن برجس رحمه الله تبارك وتعالى. حلقتني وحلقتي لحيطبنات، وأنا حلقتي أقدم بيسي بإذن الله تبارك وتعالى. waxaanu ka bilaabaynaa laba baab oo ka koobnaan doonaa. baabka koobaad annahyu can iljidaali fi ddiin, baabka kale oo ah altaxdiiru min mujaalasati ahli اlahwaa. labadaa baab baan ku khatimi doonaa in sha allahu tacaala. hal darsi buu noo noqon doonaa in sha allah. annahyu can iljidaali fi ddiin wuxuu baab u yahay reebid la iska reebayo dood lagu doodo fi amri diin, diinka arrinkiisa oo lagu doodo. wuxuu yihi mualifku raximah اllah: wayanha ahlu الsunnati wاljamacati can اljidaali wاlkhusuumaat jazaaka allah khayr wاlkhusuumaati fi اddiini إذ قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وينهى أهل السنة والجماعة waxay reebeen oy dhaleeceen u soo jeediyeen dhaleecayn can iljidaali dooda wاlkhusuumaati muranka fi diini, diinka lagu marmo. muranka diinta dhexdiisa laba weeye. muran loola jeedo in baatilka lagu baabi'iyo, muran loola jeedo shubuhaad baatila in sharciga lagu furo, dood loola jeedo in xaqa la qariyo, iyo dood loola jeedo in xaqa lagu difaaco, xaqana la caddeeyo dariiqo iyo qaab wanaagsan oo edab la socoto, iyo ikhlaas iyo xaq raadis iyo xujada oo dadka loo caddeeyo. taasi way bannaan tahay, bal way bannaan tahay ma ahane xaaladda ay daruuradu wacato waa daruuri. nabiy llaahi ibraahim baa wuxuu la dooday namruud binu kancaan, soo saas ma ahayn? soo qur-aanka suurat lbaqara ilahi nooguma sheegin. وإذ قال إبراهيم muxuu yihi ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. waa la doodaya. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. سورة آل عمران. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. jadalka xaqa lagu raadinayo, diintana lagu difaacayo ee xumbaarsan adabka iyo akhlaaqda iyo dhaqanka iyo ikhlaaska waa mamduux, waa ammaanan yahay. laakiin midkan hadda hore eena looga digayo waa maxay? waa midda shareecada la isku garaacayo, ee qur-aanka intii lasoo qaado aayaddan aayadda lagu garaacayo, ee xadiidkan xadiidka lagu garaacayo, ayadoo ujeeddadu ay tahay itibaacu lhawa, ayadoo loo hiilinayo maxay? nafta, ayadoo loo hiilinayo madhab, ayadoo loo hiilinayo xarako, ayadoo loo hiilinayo qadiya min alqadaaya, adduunyo lagu gaadhayo, madaxnimo lagu gaadhayo. kulli adiga soo aruuri wax alla wixii xuduudu nafs shayطaanna uu madax u yahay,
arrinkaa shareecadeenu way reebtay sideedana waxaad ogaataan siday culammadu dhahaan kalaamu salafi qaliil kalaamu salafi qaliilun salafka hadalkoodu aad buu mar walba u kooban yahay daarto qof aamusan oo afgaaban waa wax wanaagsan laga yaabo inuu doqonnimo la aaminsan yahay laakiin markuu hadlo baa la garanayaa wuxuu la aamusnaa siduu shaacirku yidhi wakam min saamitin laka mucjabin ziyaadatuhu aw naqsuhu fi اtakallumi badanaa nin aamusan laakiin markuu hadlo un baa la garan wuxuu la aamusnaa laakiin man samata naja qofka aamuska badan waa badbaadaya marka salafku hadalkooduna waa yaraa ficilkooduna waa badnaa wa kalaamu lkhalaf dadkii salaf ka dambeeyeyna maxay oo inagoo kalaa maalan hadalkooduna waa badan yahay waxtarkooda iyo nacfigooduna waa yaryahay aad markaa la iskaga ilaaliya qiila waqaala iyo muranka iyo fadhi ku dirirka maanta adduunyada wax walba takhasus baa loo daayey ilaa diintii ma ahani caafimaad markay timaado shaqadan dhakhtar baa iskale lagulama murmo injineernimo markay timaado ninkaasi macluumaadku yaqaano lagulama doodo askarinimo markay noqoto iyo taagtiig caskari ah haddii sargaalka arrintaa yaqaano ee soo bartay lagulama murmo laakiin diintu maanta aabbiyi hooye ma leh agoon waay warkaa meel ka xariiqa shareecada maanta aabbana ma leh hooyana ma leh saa daraaddeed nin walba wadaantiisu darsanaya nin walba wadaantiisu darsanaya kii caamayga ahaa kii culummada ahaa kii dhalinyarada ahaa shalay dhashay nin walba anigaa garanaya buu leey waxaan anaa garanaya anaa ka jawaabaya waxaan anigaa fahmaya adigu ma fikranaysa waxaa nin caalim ahoo soomaalida culammadeeda kamid ah nin u yimid takfiir buu ahaa markaasuu yihi sheekho kitaabka bukhaariga ii laqbe carabi ahaan carabiga isu kaysaar war soo gaal inaan ahay ma aaminsanid ha waan ogahay inaad gaal tahay waan ogahay laakiin carabigaa umaan raba inaan kaa faa'idaysto laakiin waxa aayaddu xumbaarsan tahay xadiidka anaa garanay meeshaan dhigayo yaa cunug yar sheekhi waa nin dheer oo caalama wey ule anig ii laqbe waxba adi kaama geline adna waan ogahay inaad gaal tahay marka jadalka diintu waan ku soconaya jumlada maanta diinta islaamku waa rajo iyo agoon isku darsaday wey waayo qof walbaa doona inuu ka jawaabo ha laga edebsado faa'ido yar baa halkaa kusoo qoray aad cajaa'ib u ah walacala bacd alcisha inaan kelimadaa baraarujino kelimada waxay leedahay min mukhtasaraati almawaacidi wa baliigi alqowl hadallada culammadii hore laga soo gaadhay aadka u xeel dheer mataqaanaan man lam yataأdab maca allah fawqa alard man lam yataأdab maca allahi fawqa alardi adabahu allahu taxta alard qofkaan ka edebsanin ilaa allah tabaaraka wa tacaala adduunyada dusheeda qofkaan alle kaga edebsanin dhulka hoostiisa lagu edbin doonaa dhib ma leh munkari nakiir laga bilaabo ilaa qabriga ilaa qiyaamo halkaasaa si fiican lagugu edbin doonaa macalimiin fara fiican ba halkaa jooga man lam yataأdab maca allahi fawqa alardi adabahu allahu taxta alard qofka inuu aada isu ilaaliyo oo diintiisa ilaaliyo waa qodob aad muhiim u ah weyaan وينهى أهل السنة والجماعة عن الجدال والخصومات في الدين إذ قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نبي أرنتها وكدقي ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم قرآنك وحد أغردان انت أي قلوبتي نسد الميسو انت أو حسلا فهميسان قرآنك أقريا qur-aanka aqriya inta ay quluubtiinu isku ogosha waa qiraa'aadkii faida اkhtalaftum haddii aada isku khilaaftaan qur'aankii faqumuu canhu kaba istaaga meesha aayadda intaad macnaheeda isla ogoshihiin qur'aankii aqriya oo ku dhaqma mar hadduu ninkan aayaddan xagga u jiito kanna xagga u jiito
meeshaasi khayr ma yaalle ka kaca maanta qur-aanka see loo galayaa soo harag yaroo lagu fadhiista ma laba wadaad baad arkaysaa doodaysa hal aayad ba isku garaacayaan waa labadii wadaad ya maaha hataa caamo maaha ma diidani fahamka anigu aayaddan aan ka fahmay anigoo istinbaadka iyo axkaamta iyo luqadii iyo usuushii iyo aalaadkii naxwadii sarfigii iyo balaaqadii wixii istinbaadkan iyo axkaamtii aalaadkii lagula soo baxaye istinbaadka lagu soo saaranayo haddaan anu isticmaalayo adigana isticmaalayso waxba la islama waynayo soo saas ma ha waxba la islama waynayo aayaddan fahamkeeda waa la isla gaari waayo qur-aanku luqada carabi kusoo degay soo ma dhibaato ma leh laakiin hawa hadday meesha soo gasho hal aayad ba arkay iyadoo lasku garaacayo qur-aankii baad arkay iyadoo lasku garaacayo aayaddii xadiidka arta iyadoo lasku garaacayo waa musiibo cas musiibat lcasr iqra'u lqur'aana ma talafat calayhi quluubukum faida اkhtalaftum haddaad qur-aankii isku jijiidataanoo nin walba uu meel la aado faqumuu canhu fadhigaa ka kaco ka istaaga qur'aankana joojiya meeshaana ku kala taga ilaa inuu yahay maxaa la yidhahdaa munaadaro cilmi ah oo aayaddan la isfahamsiinayo aayaddan caam bay faa'iideysaa maya aayaddan khaas bay faa'iideysaa okay aayaddan hadday caam faa'iideyso asalka caamka asale hadday aayaddan khaas faa'iideyso waxa khaas yeela keen waxa dhibaataa maleda nin baa maalan wuxuu yihi qubuurta oo loo safri karaa nin baa wuxuu yihi dhibaato ma lehe in qubuur loo safro waad sheegtay yani waxa qubuur in loo safro caddaynaya keen lakin saddexda masaajid in loo safri karo laa tushadu الrixaalu ila ilى halaaثati masaajida masjidi hada wa masjid اlxaram wa masjid اlaqصى waan garanay dhibaato ma leh si fiicana laysu fahmo waa wax la iska dhaadhicin karo soo ma wa fi lmusnadi wa sunan ibn majah wa asluhu fi صaxiixi muslimi can cabdillahi bn camr bn caas ana الnabiya salى الlahu alay waslama kharaja wahum yakhtasimuuna fi lqadr ufir saxaabadii buu nabigu ku soo baxay ayagoo ku murmaya qadarka qadarkuna waa abwaabta aan soo marnay aan si boobsiisa kusoo marnay runtii ee mudnayd in wax badan lagu istaago marar badana dadka inta badan ishkaal ka gala qadarka mar alla mar ku soo baxay fakaأnamaa yufqa'u fi wajhi الrumaana min algadb allahu akbar yufqa'u waxaad moodaa nabiga in lagu jeexay oo lagu dhuftay fii wajhihi wejigiisa in lagu dhuftay yufqa in lagu jeexay oo lagu dhuftay fi xab rumaan rumaanka waa baalka la yihahdo maxaan dhanaa waa rumaan xabat rumaan midhahan yare ya af soomaali mu lenaha rumaan umaa dhanaa xabada baalka yare la cuno wey wالzaytuna wالrumaana qur-aanka soo ma ha soo ma oo ku kaa rumaanka in waa baalku adag yahay waa xanuun badan yahay in lagaga dhuftay ayaad moodaa isha oo lagaga soo tuuray min algadb caro daraadeed nabigu fiiri ma cadhoon jirin akhlaaq buu alla siiyey wainaka la calaa khuluqin cadiim lakin wuxuu ka cadhooday ma garanaysaa nabiga sala la alay slam shay adag wey nabigu waxa ka cadhaysay waa maxay waa shay adag faqaala wuxuu yihi bihada umirtum abihada umirtum istifhaam iyo calaamatu tacajub saar abihada umirtum war ma kaasaa laydin amray war ma arrinkaasaa laydin amray waa minaad diinta saa ugu doodaan baa lay amray fas'aluu ahla dikri esh in kuntum laa taclamuun wanabiyu xay nabigii baaba jooga sala allahu alay slam fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun inamaa shifaau lciyi su'aal jaahilka daawadiisu waa su'aal waxaada garanaynina waxaad dhahdaa tacalam laa adri fain qulta laa adri callamuuka xataa tadri wain qulta laa adri sa'aluuka wain qulta adri sa'aluuka xataa laa tadri tacalam laa adri ma garanayo waa nisf lcilm waxaan ma garanayo maceeb baa sheekho ya haddaad wax walba dhahdo waan daadshay ama aad dhahdo waa laguu yaqaan ya wax walba adeer laguma yaqaan waan daadshay wax la yidhahdana ma jirto waxaan ma garanaya dheh fain qulta laa adri arday baa tahay callamuuk xataa tadri fadhiiso oo culamada hor fadhiisto oo lagu baraya wain qulta adri haddaad dhado wax walba waan aqaanaa
سألوك والويدين يا حتى لا تدري انت البابدو كاسو حرمان ما ضاق واحد بيقان تاك قبح أبي هذا أمرتم أو لهذا خلقتم اسكدها واحد لما وحص الذين أمورا تضربون القرآن بعضه ببعض وفرس قرآنك مياد قاركي قارك كلا كجرا عيسان وأحاديث برسول قراعي وأحاديث كحديث ما قرآن كلا قراعي أبي هذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم النبي صلى الله عليه وسلم ضد النوع عن عقيم كمن دليسك الدين تكدو ذيسان أن عقل إخلاص حكمة من كسعنين ها سبب كذا أي كي نجوه ريب الوهلة دي كي وروح الوهلة هذا البطن يضاد بعين الوهلة جاي هذا البطن يضاد بعين بل جاء الخبر حديث كانوا له إطلاقها طبعا بل جاء خبر كبايمت بأن الجدال عقوبة من عقوبات الله في الأمة جدلكو يضاد وعقوبة عقاب كمذا من عقوبات الله وحيابه وحكو ادبيه وكو قبطه في الأمة ووابك الدليل كيفيري بقى ففي سنن الترمذي أبو عيسى الترمذي مثلث الحركات الترمذي والترمذي رحمه الله وابن ماجه القزويني رحمه الله من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كان في ريا حديث صحيح وي ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل بل أفير حديث قال ما ضل قوم قال مطلومان قال ذو النكرة زبن كستي شوي كران إني توين سارنتي ما ركتان والنكرة ما ضل مطلومان قوم قالوا قرمة بعد هدى هانون كذب قالوا مركي هانون صنايين أو إيمان لهايين أو برواقي صنايين كذب قالوا مطلومان على بعد هدى كانوا عليه هانون أي كدر سقنايين كذب قالوا مطلومان إلا هدي لمان أوتوا وحالسية الجدل ضاد وحالوا امتحان مرن maxaa shaqo looga dhigaa dood iyo muran lagu murmo diinta lagu murmo qadarka lagu murmo aakhiro lagu murmo wax walba muran ka keenado soo umadu maanta khatar kuma sugno umadu hadayna cilmi ku soconin maxay ku soconaysaa dood iyo muran sama umadu maxaa kala haga aqoon iyo cilmi macrifo umadu hadayna aqoon iyo cilmi lahayn waxaa lagu imtixaamaa inay doodaan oo hadlaan oo nin walba doonayo maxay wuxuu doono inuu sheego nasalu allah alcafwa walcaafiya thumma qara'a nabigu wuxuu aqriyay sal ll slama maa darabuuhu laka ilaa jadala suuratu zukhruf aayadda 58 aayadda maxaa ka soo bilaabanaysay fiiri aayadda walamaa duriba bnu maryama mathala idaa qawmuka minhu yasiduun وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل الله محكم بالآيات سبحانه وتعالى محكم بالآيات أيضا يا ولما ضرب ابن مريم الله وحيري ولما ضرب ابن مريم ولما ضرب ابن مريم نبي عيسى مركان تصالة كدقني مثلا مركان كدقني إلى قوم كاغا مركان تصالة أو قدقني نبي محمد عليه السلام أو قريشة وابا أيقو الديدي واوكم لكن وحي كدقتوا قالوا آلهتنا خير أم هو وحيدا ما إلهي ذا إيا أصنامت أن عابد إنها خير بدن مس عيسى خير بدن فيري وحي كينين ما قرية إيو نبي ميال يسوكين كرا ألا وحيري أرنكاسي ويؤمن حقيقة ما ضربوه لك مهما كاغا ما أين دين وحيكون مهماهان إيا مثل إيا تصالو ما أين كدين لك أديك النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلا جدلا ضاد بيوغدن لين
ويؤجين حقيقة ذي ضواب بيؤجد الليهم ما ضربوه لك إلا جدلا يعني تصالح أو ما أين سوقاذنين عيسى إيو اسبربرديق محي أصنام تيعابد يانو هوبل إيو كوا لمدك إلا جدلا مرم بيؤجد الليهم ما هذا إن هو إلا قوم خصيمون إن هو إلا عبد ونبي عيسى أنعمنا عليه وجعلناه مثلا إله معها آلهتنا خير أم هو يؤجد شيئا ما ضرب أيضا مركز أنت أصلا ما كان مغنيت ومعنوه مركز كسو قبطات قرن يسامر قال الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله وحوله أصول السنة عندنا أصول أهل السنة والجماعة عندنا معشر أهل السنة التمسك وقبصشو بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم صحابة النبي وحي كدل السجنايين أولا قبصده تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح مركا ما كان بما كان عليه أصحاب الرسول والاقتداء بهم إيا إن أيغا لغو ضيضه إيا وترك البدع إيا بدعاء لغتبه وحي دينتا لغو صدره قاب عبادنا لغو صدره صحابي إيا تابعين إيا تابعين أين أغين أيا بدعاء لها وحي الدنيا ويفرانته أنتم أعلم مني بأمر دنياكم النبي صلى الله عليه وسلم والدنيا دي إذن كأيغا يقانا أما آخر وحي الله حرير أو عبادة كل عبادة تفتقر إلى دليل عبادة والبوحيو بانت الدليل كتوسية قفاكو يري موليد كان دقيا ورمحاكو تسية موليد إي كامبل يا محاكو تسية آية قرآن ما يسامية أو حديث ما يسامية ما يلا لغلوقة لو حلقة هذه ويا أبو بكر ما سميه مايا ما ذاك تشعل أبو بكر نبي مايا عمر ما سميه مايا أو ما ذاك تشعل مايا وهكذا صحابة ما سميه مايا أو وحينا هذي صحابة خير كتير لها لسبقونا إليه وإن ظهر مري لها ين تابعينتي وحي صحابة دي قرن وين من أدو قرن ويدي تابعينتي ما سميه مايا تابع الأتباع ما سميه مايا أو يا كيري شيعة فاطمين عبيديين وغريب وحلا ياب الله واحد دد باس لغو امتحان وولي مرنكي تاغن marka dad ruuxa ka daaran waxa di nabiga diidayn عليه الصلاه والسلام صلاه بيغا ما انصحaysa hadana nabiga صلى الله عليه وسلم اصول السنه عندنا تمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله وترك البدعه وكل بدعه فهي ضلاله بدعه كستنا سيده وبادي بدعه حسنه اذا لغا مقلay ايدا دليل لغا ربا نبي كل حق اصول markii loo noqdo qawaacid usul fiqiga cilmiga la yiraahdo waxa jira alfaad umum ka faa'iideeya kullu daakum wali waxa leeyahay kullu wa min a'am al-umumat umumka waxyaabaha keenay bay ugu caansan tahay kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbik fahiya dalalah wa tarku al-khusumat iya dooda in laga tago iyo wal julusi ma'a ashab al-ahwa baab kala qootay doona baab soo socda dadka hawadooda raaca in saaxiib laga dhigto oo la fariisto ayay salafku diideen iyo watarku almira'i waljidal in la doodo illa in xaq la cadeynayo oo qaab wanaagsan lagu sheegayo iyo wal khusuumati fi diin aljadal almadhmum wa taani jadal kullabu u qaybsama aljadal almadhmum wal mahmud midka eedaysan ee la caayo wake wa kullu dhalika min aljidali bil batil waxaan soo sheegnay oo hadda aan sheegnay oo dhan oo khusuumada ka tag waxa soo dhan lagu leeyahay wa fil jidali wa murank bil batil lagu doodo marka batil ku doodayso sharcigu ma ku ogoli inaad batil ku doodo lagu ogol yahay inaad batil difaacdo macsi inaad difaacdo shirki inaad difaacdo dhulmi inaad difaacdo qabiilkiina aad dhulmi ku difaacdo إننا الجدال بالباطل وي أنا إيه بلا مركز أنا باطل وأنا أكتسبه كل والجدال بالباطل أو الجدال في الحق أو الجدال في الحق بعدما تبين أما مركز لقو عدي حق كذب إن الضاد سي وضع
aw iljidaali fi lxaqi baad ku doodaysaa goorma bacdamaa tabayana marka uu kuu caddaaday kadib aw iljidaali fi ma laa yaclamu almuxaaju ama waa dooda qofku wuxuusan ogeyn almuxaaju qofka doodaya wuxuusan cilmi ulahayn uu ku doodo laa yaclamu hada shay wamaca dalika yujaadil wa yukhaasim aw iljidaali fi lmutashaabihi ama waxaad ku doodaysaa waa qur'aanka iyo axaadiidta waxaa isdhex galay alif lam mim baad maanta o dhan macnada raadinaysaa alif lam mim sood baad macnada maanta o raadinaysaa ya mutashaabiha dadka quluubta ka jiran un baa raacraaca inanay aayaadka labay u qaybsadaan aayaatun muxkamaatun huna umu lkitaab wa ukharu mutashaabihaat mutashaabihaadka waa aayadda laba macno iyo ka badan faa'iideynaysa ayaa mutashaabihaat la yidhahda faama aladiina fi quluubihim zaygun ay maylun can ilxaq fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaa alfitna wa ibtigaaa ta'wiilihi sidaa daraaddeed wixii mutashaabih ah ta'wiilkiisu laba mid u wey wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah in la yidhahdo ilaahay besa og tabaaraka wa tacaala iyo wowgaas inaan lagu istaagin oo wowgan la yidhahdo waraasikuuna waaw listi'naafiya laga dhigo iyo in mataqaanaa lagu cadfo oo la yidhahdo ila allahu waraasikuun alla iyo kuwa cilmiga ku xididaystay baa og tabaaraka wa tacaala calaa kuli xaal aayaadka mutashaabiha ah inaan la dhex boodin oo min alqur'aan aw iljidaali bigayri niyatin saalixa ama doodaad waxay ku dhisan tahay waxaa niyad wanaagsan ahayn oo hawa nafs iyo intisaar nafs iyo intisaar limadhabika wa shaykhika aad leedahay aniga sheekhaygaa saas yidhi ya ama sidaa ma aanan maqli jirin ma aanan arki jirin qul awalow kaana aabaa'ukum laa yacqiluuna shaya walaa yahtaduun oo aabayaalkiin iyo awowyaalkiin aad leedihiin inaa wajadnaa aabaa'ana aad leedihiin calaa umma aad leedihiin ilahay baa jawaaba wuxuu yihi qul awalow kaana aabaa'ukum laa yacqiluuna shayan walaa yahtaduun waxaan maana arki jirin ma diin ba waxaan maana arki jirin ma cilmi ba culama lahay may cilmi ma waxaan maana arki jirin laakiin waxaa cilmi ah shaygani mawaafaqsan yahay maxay kitaabka qur'aanka ah iyo sunada nabiga sal ly slam iyo fahmu salafi hadihi lumma waxaan aada nafteyda ugu waanin lahaa qof kastoo muslima intaad nooshahay ha ku mashquulin waxaan maana arki jirin iyo waxaan maana maqli jirin waa takhalluf waana jahli laakiin waxaad u bandhigtaa waxani kitaabka qur'aanka iyo sunada wa ilaa waktiga ayaad kaa dhacaya kaana dhamaanaya waxaan la hadlayaaba soomaaliya waxaan moodaynaa af soomaali ku hadlayay baaraka allahu fiik waa tabtaas wey khayr allah kus waa sidaas wey xaqiiqada waa in arrinta aan awiljidaali bigayri niyatin saalixa sax jazaka allah khayr akhi fadhiga baan ku qurxinaya waa saxan tahay jazaka allah khayr waa laga maray qaarkood in doodaadu inay ku dhisan tahay inaad u hiilinayso maxay sheekhaagii ama madhabkaagii waxaa soo maray muslimiinta tacasubka madhabiga ah in la yidhahdo ana xambaliyun maa xayitu wa nasixatii linnaasi an yataxambaluu anigu xambeli baan ahay intaan noolahayna xambeli baan noqon madhabka xambeliga waxaan kula talin lahaa qof kastoo taladeeda dhegaysanay inuu madhabka xambeliga noqdo limaada waxaa laga doodayaa gabarh xambeli ama guursan kara nin shaafica maya so yaab ma halkaasay muslimiintu soo mareen waa gariib waa cajiib inay muslimiintu ilaa hada almustawa inay soo mareen oy markaa ay gaadheen soo khatar maa sida madhabka loogu tacasubayo soo ma marka inaad sheekaaga xarakadaada jamaacadaada qabiilkaaga gobolkaaga waxaasoo dhan inaad xaqa indhaha iska tirto dado sheekaygii baa yidhi oon xaq ahayn xarakadaydii baa tidhi oon xaq ahayn madhabkaygii baa yidhi oon xaq ahayn ugaaskaygii baa yidhi maraaqaygii baa yidhi garaadkaygii baa yidhi wabarkaygii baa yidhi saa loo xanaaqin nina baaladu magacyadu waa la kela suldaankii baa yidhi iisoo waday raalli hada cidday ka maqan yahay suldaanka ya
ومر ما شيء عاقل يا أوي شيخ محوها ما يمد بالله بقر إمام أحسنت إمام هاس إمام كان وجرة مركا وحاصر هداد واتباع إن الآن أضراعي سه علماء الله وحل راعي محيه وكتاب القرآن كي السنة أي لصعة فهم كي صحابة إيه تابعين تتابع الأتباع انت سدين نوعه وحي انت كبضا أما كوصي وقتي إنها كل مننا ونحو ذلك الجدل المحمود هذا بدو هذا معان اللي أقول هي أمانا أما إذا كان الجدال لإظهار الحق وبيانه من عالم له نية صالحة ملتزم بالأدب فذلك مما يحمد. الله أكبر. هذا يعني وجملة مضن إن لغو قرأ يعني بماء الذهب بيها الذهب كإن لغو قرأ انت أنسيت أقبلنا محجر المؤلف رحمه الله dood banaan ee fiican ee wanaagsani waa mida liidhaar alxaq in xaqa lagu cadaynaya maxaad ku cadaynaysaa xaqaad cadaynaysaa ko wa bayaanihi wad cadaynaysaa yayna ka soo fulaysaa ma qof kasta oo caamo ah may min caalimin nin cilmi u leh oo caalima weliba caalimkaasoo lahu wuxuu leeyahay markuu doodayo niyatun saalixa hawo waa ka maraya waxaan sheegayno dhan waa ka maran yahay ujeedadiisu waa xaq bayaani ayadoo la socoto niyada oo hadal xaq adii laga helana ala ar-ra's wal 'ayn wa raa'aya sami'na wa ata'na walis laba wadaad oo Soomaaliyeed oo dooday soo garaamaarteen bala la soo raadiyo adduunka intiisa kale intay niqaashaan ayuu nin dhaha nacam mas'alada waa la iga hayaa waa la iga badiyay xaqi baan ii cadaaday waan ku mahadcelinayaa shukran aniguna xaqan raacay waa laga hayaa adduunka intiisa muraajacaad baa la dhahaa argasa fulan 20 sano waxa fatwoonayay thumma taraajac xaqi baa u cadaaday nuuqish wa nuudira wa la niqaasho wa la munaadarooday kadibna xaqi baa u cadaaday wa taraajaca wa rajaca ila alxaq mar hala soo helo laba wadaad oo Soomaaliyeed intay doodeen oo munaadaro sameeyeen mid yiraahdo khalaas waa isdhiibay marka wadaadka wuxuu sheegay arrin marka wadaad iyo waran laba habeen malma su'aal isradiya warun radintu haday cilmi leedahay waan ogolahay laakiin maadaama cilmi ku dhisnayd waxaan doonaynaa inaanu helno ya labadii wadaad inuu mid uu la soo helo de labadu xaq ku wada socdaan soo saama labadu ma xaq ku wada socdaan maya labadu xaq kuma wada socdaan mid bay misala ka qaldan tahay soo midna waa u saxan tahay soo ma hadii la isfahamsiiyay mukani i'tiraafo oo uu yiraahdo maxay xaqi waan ogolaa arintaasi in aad looga shaqeeyo u baahan tahay bisayl bayna u baahan tahay xadaarayna u baahan tahay waxayna u khuduucaysaa in culimada Soomaaliyeed tuumaynin hadana kelimadan ba xusay caalimun lahu niyyatu salihah lianna niyyada salihada maxay ku siinaysaa ya ina isdhiibto أضد سمعنا وأطعنا ملتزم بالأدب هذا هو مركي لدوديو وإن آدابت مناظرة عي وإن انجرين أفلق هذا وإن انجرين شخص يقفك أجدبت وإن انجرين مسألة نسكوها إنا مسألة ذا كويكو الشخصية دي هو سوجد بين شخصية دي هو أجد بين صوص ما لكن مسألة أنه كود هذا إنه إن نجد حيسا القرآن له أم حديث له قاببك أدلي شنيسو أنا أدلي شنيو أنا قوم مسكح لي تومية عقلي يجينا تومية رأيي يجينا تومية أنت أنقرنا يا وإن كوسو قد بيا قاب يكون ده أنتي أدب إيا أخلاق حب إيا شعيل إيا بيان الحق تاسع وحلو جاري كرا فلذلك مما يحمد أرنك أصاشا نوامتك الأماني قال الله تعالى لو حين ادعو ويربى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبيل ربك ربك دينتيسا يا عقيدة ديسا waxaad ugu yeedhaa marka dadku u yeersa bil xikma adigoo xikmad ku dheehan xikmaduna waa shay walba meesha ku haboon oo la dhigo yaa xikmada dhaha in allah soo xakiim ah shay walba meesha ku haboon buu dhigaa subhanahu wa ta'ala iyo wal maw'idati al hasana waana wanaagsan waxa laga wadaa wal maw'idati al hasana
هذا المعان أن ترحان لهين هذا الآن قفك داوعين هذا القفك قلبي سجلية هذا الدليل وته أو قرآن السنة وته أو الدليل وته أو سلف كفهم كودي وته أذكر قصة يوم وصانية وجه أنا لقى أرك يقفك خير لدونيس والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن كل ضد بالي مدة أحسن وليبا على وزن أفعل صيغه هدي مرب وزن أفعل كي مادو أو أحسن كي مادو أو أكرم كي مادو وحوي مبالغة لقد خلقنا الإنسان في أحسن وفرق بين حسن وأحسن فرق بوضح هذا حسن وهذا أحسن هذا أفضل هذا أخير هذا أكرم هذا أفهم هذا أعلم مبالغة بجرد مركا الله وحيري في أحسن وجادلهم بالتي هي أفضل هي أحسن مد أقونا قبضا كل الضوء يا هذا المدك أقونا قبضا فعل مدك أقونا قبضا وقال تعالى الله وحيري ولا تجادلوها كل الدودين أهل الكتاب هذا ويهودي نصارى هذا لقاضي حتى مسلمين ما يا ويهودي نصارى إلا بالتي هي إيش مرة بعد هي أحسن أيضا الأفضل والأحسن والأكرم هذا المتك أوقف في عن أوقف ونرسل كنادو إلى الله كانوا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم قال هذا إله يدها عايب بالوير أم هذا عاي تلعروتو هذه إله عابد يسوى النوع وانا النوع كدروية حقا وراء صح مناظرة ما همدا إلهي حقها أبو مركا أيو عينيها إلهي حقها أيو عينيها لما أقول مرك مناظرة ما مرك نين عيتمي سيدي سوى لقات كاسو مقدين سيدي سوى قاعدة قاتا هدارت نين عيتمي ولقات كاضي بضاعة سنة ويرت بضيعة سنة ويرت وبضاعة مزجاة مركا أظن حراقين حقها قد بي صور في عما وقال تعالى إلى وحيري قالوا يا نوح قد جادلتنا ما يكون هن نوحو قد جادلتنا وانا لا ضوضي وركب نوبة بدي سوف أكثرت جدالنا ولما ضوضي بعد نوبة بدي سي إيه فأتنا بما تعيدنا بل عذاب كأن نوبة بدي يسنوه كامبل قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا نوح ودودي بعد نوبة بدي سوى أن لا ضوضي ودودي بعد نوبة بدي سي فأتنا بما تعيدنا بل عذاب كأن نوبة يبوه يسنوه كامبل يا سلام إن كنت من الصادقين صمدعن نبي نوح ها ودعي ربي لا تذرني ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ومركي الله شيء قف ضمبو رمين دون إنه زنجر واجب وأخبر تعالى الله وحنوشة عن محاجة إبراهيم وركهرو إيجتي ما أستان نبي إبراهيم دودي سؤال الله نينك إله لماذا شيرتي الذي جري نمرود بن كنعان دينته إنه أيضا الضوء ونكسر الصلوة وركا ميركو قرآن لا يرى كل قرآن كأغري عدة بقرة يسوي جودية يسوى عدة كلا أما مسلم كون السجية دودي سنة ويسعنتها هل دقيقة وجلاسي سريعة إلى أمثلة قصية مدوا قصة النبي إبراهيم نبي إبراهيم لفتيسة إيا أبيه إيا قوم كي سؤودا أو إسبير صدي سورة الأنعام إيا سورة الأنبياء إيا سورة مريم أقري إلى أي مركز دم الضب الشيدين أو أي دب كتورين الله نأهيلي تبارك جل وعلا صصص معها وهذا أقري قصة موسى مع فرعون بل القرآن كسورة الشعراء إيا سورة كل بالآخر قصص بل وحي أحمر فيري حقيقة دم بيسي مناظرة ذي نبي موسى إيا فرعون أحمرتي سحرة ذي مركي الله يري أولا الطوري محالي هذا وحي أي سوم المليقين إيه عند صراعات كأها نبي موسى وابكي عبصديقة لكن مركو أشي سطوري واتي وحي ودن عنطي فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون مركي النبي موسى أتكاذي أو لقى أتكاذي فرعون نيكا قول ديما نبي موسى مسوى فرعون
فرعون بينتو عروريري قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إن هذا لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قفك يرجع إذا يكون الحرية من نبي موسى من سوى فرعون، وفرعون أسقى عرري. وهكذا قابيل يهابيل مركو الليل إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وهابيل لأقبل الدعاء وقابيل لأقبل وايي نينك يري وحبان ديلا يا من نينك مؤمن كأهابا مسوى نينك كلا كي كلا وحيري لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. هذا هو الإرهاب. إرهاب كحقيقي يا كاوي، إرهاب كرمت حقيقة معها مسلمين. إرهاب كرمت حقيقة حقا مع بسنة إنسان بسوي وأوكي سما. ولذلك الشاعر كحيري وقتل قرد في جريمة في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. داير دور كلا قد لي حقوق الحيوان كلهم بيستاجية شعب لن ولا بابينا قيل بالله يست إرهابيين ويويتوا كذا ولا فهمت برك الدين تينا كنا جرادة كنا جرادة ليش؟ لأن مبدئين هيستا عقيدين هيستا لأن قفك مسلم كأسوأ حجة له. قفك مسلم معها قف وحظ المياه. قفك مسلم كوقف مسالم قفك مسلم كوقف بضيعة غالي أو وطؤة الإيمان بالله والعمل الصالح. ومع فرعون نعم ومع قومه عليه السلام مع قومه وموسى عليه السلام مع فرعون. وفي السنة ذكر محاجة آدم وموسى. آدم يا موسى واتي مثل قدرك كدودين. ونقل عن السلف الصالح وحال قصر مناظرات كثيرة ضوضاء فربضا وكلها من الجدال المحمود. كل ضوضاء أمانة حق الاسكبو عدينا من عالم له نية صالحة آنسوشن الذي تتوفر فيه أي نحديث لقاه لكو العلم كو وقدر كوبات والنية اللبو والمتابعة وأداب المناظرة ومغا وأفر إلى الترية كو العلم واحد يقول هذا وإنه نقول معي طو النية وإن النية صالح تهي أو حق دون تهي صدح. المتابعة وحل الراعي وإن تهي نصوص القرآن كإيو إيا السنة نبيغا معها إلى البدع خرافات قزع بلاد لصوم فبركات لقزة زمي إن ماشا التي ما ضماها لا واحد كنت هذا قال الله وقال والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة وما سوى ذلك فهو من وساوس الشيطان. سيدو نينكو يري علمي قال لقول شيء وقال الله قال رسوله قال الله قال رسوله. marka dooda iyo muranka dadkii aadka ugu mashquulayna marka dambe iyo cilmu kalaamka iyo cilmu falsafada iyo waa kuwii marka dambe yiri nihayatu iqdam al-uqul iqalu wa akthar sa'i al-alamin dalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa akhir dunyana adhan wa wabalu ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا إن الله كره لكم ثلاث قيل وقال. يعني إلى ما تنو هبل بايري الله يجري رسول بايري صبا تاوي محل مد لدونه إلا وضعه مركو يجري وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعة ينمى وفي الوزن يرجع. ودع عنك آراء الرجال وقولهم ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. ليش؟ لأن هذا العلم الفلسفة كده قيل وقال حديث دريسة سنة النبي دريسة صلى الله عليه وسلم ضد أدونا هبل بايري بيكسو قبول. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ولا فهم سما هل كاوي مركب يدو دونا يونا والمتابعة
وآداب المناظرة مناظرة آداب بيننا محاكم إذا آداب المناظرة تحرير المسألة أنا ورقدم بان كدودينا كوبك كبدودينا ميسكنا كبدودينا تحرير المسألة هرت مسألة لقد دودي وإلا سلو أقليه وإلا استحريريو أو مسألة العادية لا سلو أقل هذا وحن كدودينا ومسألة ذا وإلا إلى هذا كدبنا آدابتك الله إلهي التحذير من مجالسة أهل الأهواء كدبنا المؤلف وكتاب كان باب كان وكو ختيم دونا إلهي خاتم هذا إن خيرها كو ختمه دقيد الاسكيد دقيد يددك هوذو ذراعة النفط ذراعة اتباع الهوى وعذر خطر أويه قفك إنه نفتي سرع هوذي سرع ونبي قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار مركدتك هوذو ذراعة سان شيغي تقليد الأعمى إن الآن تكون راعة شيخي سراعة حرتي سراعة جماعتي ساوحا كن راعة حركتي سراعة قبيلك سراعة نفتي سوهي لي محالي هذا الهوى هوذنا إلهي وأن نجد تبارك وتعالى أكثر وحذر أهل السنة من مجالسة أهل الأهواء والبدع تحذيرا شديدا أهل السنة وحي آذا وقدقين وإن بدن أي كدقين من مجالسة أهل الأهواء دادك هوذو ذراعة إلا لفريستو إيا والبدع إيا بدعوين كدادك كعان بحي تحذيرا شديدا لكن ما أنت مع الأسف الله ما قرنا يا أهل البدعة نول بمركة قفك خلاف سن بأهل البدعة صما لكن أنا داس خلافنا أنا أهل البدعة بنا وحان بدعة لقدقين بيضتكم بدعة كدقان مسألة ومدان لها تحرير المسألة وبانطي هرت محاب بدعة لها بدعة أقسام بيننا بدعة مكفرة وغير مكفرة بدعة قفك وكو قالوا بي يمد وسن كو قالوا بينن مركا وين ذوق هذا هرت محاب بدعة معها قفك أنا خلافة إنه التكفيرية قفك أنا خلافة إنه أهل البدعية ما معروف ميزان كاساس ما هكذا تورد الإبل سيدا قيل له ما أروريو هكذا قيل له ما أروريو بدعاده ووحلة يقانه ومعروفة مخالفة بالكتاب والسنة ولذلك الشيخ مركو صو أروريي وحن أركي دونا ميشو مدح وقلي مركو دميس وحيري لأن مجالستهم فيها إن مكا لمفري صدت كاسي ومخالفة أمر الله أمرك إلهي بعد خلافته وهي علامة محبتهم وحين علامة الدليل أتهي إن الأيقة تشعش مر لما دو كعلنا إياه ما تقفك الصون أنا إسخلافنا هدان دو بدع الدليل شدو ما صعبها كان أنا دو هبل وهدان هبل لا سعطو أنا قعدت إذا بدع كذا حكومية هي وذا الهبل بايرينك وبدع أما الشيخ وبدع أما مساجد كوابدع صادر هذا الله سعطو إن تشعش هاي علامة تاي أما هديد أرتو أذون لا سعودا waxaa laga saaraya kooxdaadi iyo kuwaad ka tirsaneed baa laga saaraya waligay faham ka qaloocan oo ka marorsan waligay ma arkin waxay u baahan tahay maxaa bidca la dhahay in la ogaado yaa bidca markay tahay in la yidhahdana bidcadii la kala saaro kadibna dawaabideeda lagu sharxo marka nin walba hadduu dalwa waa dhib waay wahiya calaamatu maxabatihim wa mujaalisuhum la fadhiisigooduna calaa khatar bay ayaa ka dhalanaysa min alinqiyaadi ilaa dalaalihim inay baadinimadooda ay ku jiidaan ay ku jiidaan bay khatar ugu jiraan iyo wa mutaabacatihim calaa baatilihim iyo inaad baatilkooda aad ku raacdo de waa run waa khatar qaala ibnu taymiyata sheekh lislam ibnu taymiyata raximah llah wuxuu yidhi walbidcatu alati yucaddu biha arajulu min ahli alahwa ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفة أهل الكتاب والسنة رحمة الله عليك يا ابن تيمية كرمبو شاكي وعجيب عيري كأنما إنا داوين أيو قام كده أن كهل ليني أما أنت لبضي إسخلاف تبع أما لبضي جماعة إسخلاف تبع أما لبضي كوحوض إسخلاف تبع ومن والمدك ليه ما داموا أنا إخلافي أنا على الحق وهو على الباطل وحين والبدعة التي يعد بها الرجل بدعة lagu tirinayo qofka min ahli al-ahwa inuu yahay bidcada la dhihi karo ninka waa ahli al-ahwa wa mashtahara inda ahli ilmi bis-sunnah wa mashtahara wixii ka caan noqday ee caan ka noqday inda ahli al-ilmiga agtooda bis-sunnati mukhalafatuha lil-kitab was-sunnah yani waa waxa
أهل السنة أهل العلم أكتوض عن كالنغضي يعني مخالفة أي كعديين كتابك القرآن كأي السنة كبدعة الخوارج مثلا شيخ ماشي صالح كاسي في شيخ الإسلام ابن تيمية كبدعة الخوارج خوارج بدعة لا تمد أو محي دهان إيمانكم مزيادة من النسخام وبدعة إيمانكم يا إما إلي بهاشا بوحده يا إما هدايس لنتين قال نغضه أو كبائر نغضه وبدعة يا بدن صومها وبدعة أدو يا بدن ذاتك ويلي مادين بدعة كبدعة الخوارج وانا السببت مركا ذاتك الله يانوي أي وحو التكفيريان وانا تنكون ديراني إلا حالة يهبين وانا مركا نكاهد ليني مسألة ما تغنى كو صابسا محل أئمة المسلمين وقالوا لهين أيقوا موقف غيقاتين ومحي هدوما إمام كان مسلم كأه وكل كبيرة من الكبائر وإن لغبحا أو لرد قالما وهذا مخالف للسنة أرنتها السنة النبي أي خلاف سنتهي صلى الله عليه وآله وسلم كبدعة الخوارج والروافض روافضون ونمك الشيعة لبحي واقعوا مقعود الرافضة اللي يجري شيعنا ومقع في عن محايا لي إن من شيعتي لإبراهيم لكن مقعنا استعمالهم كعام بحين لكن أصل كوضو وكو حكم علي الرفضي ساد ردد بالرافض اللوبحي وانا نمك أدونك هذا كو انتشارية قالنا أي دبضا كوضو دوني إني كفافيان عقيدة ذو باطل كفاسد كأه قبلها إن عفيفات كأهانا أي دوني إني متعوح ليلهدو oo sanadkii lixaad ba la nasakhay oo khaybar lagu nasakhay maxaa la yiraahdaa ay maanta ay doonayaan inay ummadii ay ku fasaadiyaan oo ay dhahaan jibriil baa khaldamay markuu nabi ali u dhiibi lahaa nabiga u dhiibi sallallahu alayhi wasallam saan habeenka dhaweeyay aan sheegnaa kale aan soo tilmaanay nimanka ayagana khatartooda ay leeyihiin wal qadariyya nimanka qadariyada la yiraahdo qadarka aan aaminsanayn ama qaybahooda iyo wal murji'ah nimanka murji'atu al jahmiyya loo yaqaan ما مرجئة الفقهاء معها ايوان مرجئة محل هذا عمل كيما كسرت ايمانك عمل كيما ايمانك كسرين لا يضر مع الايمان معصية ولا يضر مع الايمان ذنب ايماني كايمان جبريل وميكائيل ايماني كايمان ابي بكر وعمر قفك دو سولي دي وحب الله ايمانين او تعريف كايمانكم حوية عند المرجئة وقول باللسان واعتقاد بالقلب فقط عملكم بجرو هتكنن هسومن هصلادن إلى عكلا مسلمين تالله دي قوضة دادي حولوضة عن هذه جبريل اسكو ميل بجنة كجليسان وحاس دادك ويدادك متغنى يكوى الله متكا قال تعالى إلى وحيد وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري هذا رأتكوى الله فرديا يكوى نحن دبالنا يده إيه نحقل في آياتنا كوى آياتك يجا كمر مياه إيه نحقليا إيه اسكد دبارميا بلا علم وبلا بصيرة أيضا علم كسعن فأعرض عنهم اسكيجس حتى يخوضوا في حديث غيره إلى شيكان انتهي حيران إيه شيكان قال وإما ينسينك الشيطان هدو شيطان كوهل مانسيو أضرت أيضا آيات كي للنحتين بنيو باطل للغمر ميو أدوغن أضحفظ أو شيطان كوهل مانسيو فلا تقعد بعد الذكرى حصوص الشك بسيط فدين كيف تغمش مع القوم الظالمين قال هذا الله فريسن سو قاعده في عن ما عجيبه فدغ الاغليه فدغ نوكله فدغ اصلاح بين الناس فدغ خيرك فدغ صدقه لسكو امريو فديده وناغسن والا فديدنا انت بدن محيوبتين الا من رحم رب العباد قيل وقال يغيب يحن الا من رحم رب العباد قال ابن عباس وحير حبر هذه الأمة وترجمان القرآن وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس وحير دخل في هذه الآية آيات وحاسوق ذا قليا كل محدث في الدين قف كستو الدين تكس والدراء وحان كمدهين قف كستو كس والدراء الدين وحان كمدهين أي آيات السوق قليا وكل مبتدع إلى يوم القيامة ننكستو مبتدعنا وسوق ليا إلى أدونك اللي قربه نقله أرنكا وحاكسور ابن عباس عنه حديثة البغوي الإمام البغوي كتاب تفسير أبوليه ميوش ها البغوي في تفسيره الإمام البغوي
أي كتاب كيس التفسير كا مدام عبد الله بن عباس ومفسرها أي كيسو قولي. وقال ابن جرير الطبري ومفسر كي ويناسر وحيري وفي هذه الآية الدالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. أي انتهى وحير أيضا وحاسوق ذا قال يبيني في هذه الآية الدالة الواضحة آية وحاكسوغا عضين على النهي ريبين لغا ريبي عضين تتبع كسوغا عن مجالسة أهل الباطل دادك أهل باطل كإن لفريستو ريبين لغا ريبي من كل نوع من المبتدعة. الدلالة مياه أحسنت. قال ابن جرير الطبري وحيد وفي هذه الآية الدلالة الواضحة صح جزاك الله خيرا وحاكسوغا عدين باكسوغا الدلالة الواضحة يعني وحاكسوغا دليل على النهي عن مجالسة أهل الباطل. أهل الباطل كا إنا نلفري سنو الريبين دلق الريبيو من كل نوع من المبتدعة نوع أي نقطة نوع أي دون طبها النقطة محالي هذا المبتدع هذا ذاتك معناها دين تكسو دري من كل نوع من المبتدعة نوع كستوي مبتدعة تاي أما قابها كي مادين خوارج أما قابها كي معتزلة أما قابها كي مادين محالي هذا كوكل أو قبور دول فديو انت بريا عبد القادر روضة كوها ما انتنا ما قرنسا نوع يدون طاها النقضين إيا والفسقة كوة إلهي كحرق فرتئة فسقضاء إيدا إلهي عاسيي تبارك وتعالى عند خوضهم مركا إلهي ليابك وحاكم إذا قل ياها هيسا أيا واضح دينا وحي سمي رمضان كي هدا ميمسكيك وريي هل حرالة قرآن كأبا يسميين هل حرالة قرآن كأبا نصمين النابلي إياه حياروي الرمان نوع عاسو كلاو حياروي قرآن هل حرالة ما قال هذير قرآن كإن لغو دقمه هو الدستور ووح لغو دقمه ووح لغو عمل فلو ونولل ما وح لغو تفكو لغا دقتو رمضان كلا اسكو دافيو آيادا صوتوري آيادا ما يسرئيو وحلا مدى داد أصل كوضوبة عمل كي كوشيران ويهي عمل آن إسلام كي مسلمين تمنى وخدمينين أنا إياقب الله حنوني. والفسقة عند خوض في باطلهم قال ابن عباس ورقد سورة قدام بيسا قال ابن عباس وحيري رضي الله تعالى عنه لا تجالس أهل الأهواء دادك أوذو ذراعة هل فريسان قرابا نهائيو يا اسكو قيس بان نهائيو اسكو قبل بان كإيمان نهائيو دي شيكذا ويفربضانت لكن سنن باتك قادي اسكا إلالي هذا دعوة أبو ياريس لكن صوب فرنو هذا دعوة خير أبو ياريس صوب فرنو هذا المساعدك أبو ياريس صوب فرنو هذا القرآن كبريس صوب فرنو لكن هذه انتو كدوف صديرو صلى الله عليه كله مداوي مدى لغاقا بقايو أما عقيدة حن وكو طلالو نبي قعنتيس وكو ورابي ويمالين تقيام عاملة الناصبة أتكو درمت هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا النغط الذين ضل سعيهم أيه في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إنا يوحفي عن الله إيمانا يان بموديان الدنيا ده أرنكا كودك منه دين تالا يان مرتي أكن نقولين دين تالا عيد كلا وسيم مرين عقيدة تالا عيد كلا وسيم مرين ما تستعبدتم الناس وقد ولدتكم أمهاتهم أحرارا goormaa dadka adoonsateen waxay dhasheen ayagu axraare adigu hooyada adoo xore ku dhashay Soomaa maskaxdaada xor u noqo diintaada baro manbici iyo ishi iyo yaaxeenti iyo wabigi iyo meesha ka soo burqanaysay oo ah kitaabka quraanka iyo sunnada nabiga iyo sida ay salafku u fahmeen inta ka diin dhigo cid kula dhala cid adiga saad u dhalato kale u dhalatay oo 9 bilood ku dhalatay adeer iga barakayso aka yeeli إيجا بركيسو محل بركيسا بركة كتاب القرآن كأوي بركة السنة النبي صلى الله عليه وسلم بركة ودينته وصلاة وصونك وزكاة وحجك وطاعة وقرآنك وأذكارته تاسا بركة وكوكا فإن مجالستهم ذاتك الله فرقوضو ممرضة للقلب قلبي عذر كردان يعني عذر كاير هذا المحي حانوني الله فريسانين تم بحمد الله وتوفيقه ودميستر مي حمدك ألا سببتي بكل دميستر
annaga awoodeyna ma wa tawfiiqihi iyo waafajinta alle kitaabu lmuctaqadi الصaxiixi alwaajib calى kuli muslim ictiqaad sheekh wuxuu yihi as'al اllaha tacaala allaha sareeya waxaan weydiisanaya an yajcalahu inuu ka yeelo kitaabkan asaga ah liwajhi اlkariimi mid asaga dartii loola jeedo ikhlaas yacni kitaabkan annagana waxaan weydiisanaynaa allah tabaaraka wa tacaala kitaabkani inuu alla nooga dhigo tabaaraka wa tacaala dartii kuwa wax u gaadhsiiyey khaalisan liwajhi اlkariimi khaalisan walisunati nabiyihi muxamed sal ly slama waxaa kaloon allaha sareeya weydiisanayaa inuu ka dhiga kitaabkani lisunati nabiyihi muxammadin muwaafiqa mid sunnada nabiga waafaqsan saasaan ilahay ka barya wa an yanfaca bihi cumuuma almuslimiin muslimiinta jamiica almuslimiina cumuumkaas wa an yanfaca bihi cumuuma almuslimiin ay jamiica almuslimiin ilahay waxaan weydiisanayaa inuu muslimiintao dhan ku anfaco ilahayna waan ku anfacay runtii kitaab barakaysan wey wa salى allahu waslama calى nabiyina muxamed sal ly slam naxariisiyo nabadgelyo allaha yeelo calى nabiyina muxamedin nabigeeni muxamed sal ly slam wa calى ali beytihi qaraabadii nabiga alaطhaari ee wan wanaagsanaa ilaahay nabadgeliye naxariis allaha yeelo wa saxbihi اlakhyaar iyo saxaabadiisii la doortaye ilaahay uu u dooray nebi moxamed inay saxaabo u noqdaan iyo waman tabicahum cidda ku raacday saxaabada biixsaanin wanaag ku raacay ilaa ywmi اddiin ay ilaa ywmi اlqiyaama allah waxaa weydiisanaya tabaaraka wa tacaala inuu kitaabkan uu nagu anfaco sheekha kitaabkan noo qoray ee juhdi kusoo bixiyeyna caawa wuu naga hooseeyaaye ilaahay inuu janat lfirdows abaalkiisa u ka dhigo qabrigiisana ilaahay ogu nuuriyo su-aasha munkar iyo nakiira ilaahay ugu dhib yareeyo sadaqa jaariyana ilaahay uu oga dhigo annagana kuwa ku intifaaca gadaasha ilaahay uu naga dhigo wixii aan asiibay ayuha alaxiba mahad taasoo dhan alle keligiiba iskale maxaa yeelay waafajinta asagaa leh wixii aan gefay ama aan khalday ama cilmi la-aan ii geysay ama carabku iga dafay ama deg deg uu keenayna ilaah iyo rasuulla beri bay ka yihiin anna beri baan ka ahay cid alla ciddii aragtana way sixi kartaa way u furan tahay way iisoo sheegi kartaa halkaa saasa carabkaaga dhacay halkaa khaladkaasaad u fahamtay qalbi furan baan kusoo dhaweynayaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala waxaan mahad ballaan u celinayaa xamdiga alle kadib walaalaha ka dambeeyey fikirkan asaga ah iyo liqaagan iyo kulankan iyo safarkan maamulka iyo idaarada iyo qeybta dacwada masjidkan khalid bin walid toronto canada toronto ilahi tabaaraka wa tacaala ujuur aan dhammaanaynin inuu ka siiyo hada wabillahi tawfiiq wsl اllahuma wslma wbaraka عlى muxamedi wعlى alihi وصaxaabati ajmaعin wالsalamu عalaykum wraxmat اllahi وbarakatu